waxaa khadka si toos ah ugu jira Cabdiraxmaan Maxamed oo ku sugan magaalada Jigjiga. Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warbixisaa arrimihii ugu dambeeyay ee saaka ka dhacay magaalada Jigjiga. magaalada Jigjiga waa iska hadda degan tahay waqtiyadan duurka, laakiin saaka barqinkii hore ilaa subaxii way kacsanayd. waxaa la arkayay ciidamo fara badan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata, qaarna ay gaashaaman yihiin oo qalabkan dhagaxa la isaga dhiga ay wataan oo jidadka ku sugan, gaar ahaan goobaha isgoysyada ah ama jidkan wadnaha ah ee magaalada dhexmara. waxaa la sheegayay mudaharaado ka dhacaya xaafado kamid ah, mudaharaadada oo ay sababeen xidhitaan la sheegay in la xidhay gudoomiyihii degmada Tuli Guuleed oo dhacday Jigjiga nawaaxigeeda. gudoomiyaha waxaa lagu xidhay baa la yiri Addis Ababa loo sii qaaday. xidhigiisana waxaa kolkii aan daba galnay la sameeyeen la cadeeyay in ay xidheen dhanka federaalka laga xidhay. waxa kale oo warar aan la xaqiijinin ay sheegayaan nin loo soo xidhay inuu qaraxi iyo waxsaas sameynayay, xaalad la xidhiidhana inay dad ka yar kaceen iyo waxsaas la sheegay oo la xaqiijinin. laakiin mudaharaadku wuxuu u badnaa gudoomiyaha Tuli Guuleed oo la sheegay inay xidheen ciidamada federaalka loona sii qaaday dhankaas iyo Addis Ababa. sababta loo xidhay maxay tahay gudoomiyaha degmada Tuli Guuleed? ujeedka ka dambeeya xarigiisu waa maxay? lama cadeyn karo, laakiin in degmada Tuli Guuleed waa degmo nasiib u yeelatay inay dilo badan ka dhacaan sida dadka reer Tuli waxaa ugu sameeyay in la gubo dhul guriyo degmada ku yaalay. dilku isagu waa iska joogto oo haddii 2 maalmood ay badaado maalinta kale xasuuq baa ka dhaca. ma garan karno waxyaabahaas la xisay. wasiirkii gaashaandhiga ayaa isaguna jooga Jigjiga, wasiirkii gaashaandhiga ee federaalka Ethiopia. ilaa hadda maamulku ma ka hadleen xariga gudoomiyaha degmada Tuli Guuleed? weli kama aynan hadlin. waxa kale oo xusid mudan in isbitaalka weyn ee referaalka la dhaho in ay buuxiyeen dhaawicii degmada Tuli Guuleed oo si isdaba jooga maalin kasta u soo gaara. dhalinyarada reer Jigjiga si iskooda ayay dhiig ugu shubaan. maamulka qaybo kamid way tageen oo way booqdeen, laakiin arrintan xiritaanka gudoomiyaha cid ka hadashay oo warbaahinta la hadashay weli ma aynaan maqlin. haddaan kusoo noqono arrinta kale ah ninkii loo haystay qaraxyo la rabay in loo geysto qaybo kamid ah magaalada Jigjiga, isaga bal noogu noqo qaabka mudaharaadka maanta loogu mudaharaadayay maxay ahayd? warkaasi lama xaqiijin Maxamuudow, oo war hadda la xaqiijiyay ma aha. laakiin mudaharaadka marka dadweynaha weydiiso maxaa dhacay, laba cod bay dadku u kala sheegayeen oo waxaa loo mudaharaadayaa awsha xiriga gudoomiyaha. dadka labaad oo ku dhahaya arrinta waxaa iyaduna aan ka madhnayn inay mudaharaadka ay qayb ka tahay dadkiisu rabeen in la sii daayo. waxaan rabay inaan ku weydiiyo iyadana oo xusid mudan, waxaa tiri waxa magaalada ku sugan ciidamo federaal Ethiopia oo qayb ay wataan walxaha lagaga hortago rabshadaha oo yihiin kuwa ka hortaga rabshadaha, qaybna ay wataan hub oo sida militariga oo kale. maxaa sababa mar walba oo mudaharaad ama arrin dhanka amniga ay ka dhacdo magaalada Jigjiga in ciidamada militariga ah lagu soo daayo magaalada? Maxamuudow, mudaharaadka magaaladan ka dhacay waa mudaharaad ka khatar badan baan isiri magaalooyinka kale mudaharaadada ka dhaca. 4 bisha August mudaharaadkii dhacay saameyntii uu reebay baa weli kasii muuqata meel kasta oo magaaladan kamid ah. waxaad arkaysaa hoteelo la gubay, xarkaha korontada oo la gooyay, goobo ganacsi oo la gubay, hoteeladii dhalada ahaa oo weli sidii u jajaban. marka khatartaas si aynan u soo noqonin bay uga hartagayaan bad moodaa. hadda waxa ay gaariga oo aad ciidan xoog u badan, ciidan aad u tiro badan saaran yahay oo isdaba socda. ciidamo kale oo lugeynaya socda magaalada bartankeeda. marka waa uun ka hortag laga hortagayo wixii dhici lahaa ee maalintaas dhacay oo kale. ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida qaybahooda kala duwan, haday booliis noqon lahayd, new booliis haday noqon lahayd, ciidamada rabshadaha ka hortaga awood uma lahan miya iyagoo ay ku sugaan amniga magaalada Jigjiga? way ka qayb yihiin, militariguna waa ka qayb, iyaguna waa ka qayb, waa la iswada dhex socdaa. qolyaha aan aad u arkayo waa qolyo la yiraahdo federal police oo dhar buluug iyo madow isku dhex jira qaba. waayahay, ugu dambeyntii jawiga magaaladu wuu degan yahay baa tiri. maxaad is leedahay marka deganaanshahaasi maxaa keenay? marka hore haddii mudaharaad ay ka dhacayeen ma dadkii baa isaga kala tegay oo ka caajisay mudaharaadkii, mise awoodan ciidan la adeegsanaya cabsi gelisay dadka?
degenida waxaan ka wadaa wax mudaharaad iyo dhagax tuur iyo qaylo oo hadda socota ma jirto waa la caabiyey mudaharaadkii laakiin dadku cabsi bay dareemayaan oo markii ciidan iyo hoof iyo qoryo PKM-yo oo silsilad leh gawaari ay ka lalmadaan oo kolba dhan u socda ay dadku arkaan laazim dadku cabsi way dareemayaan laakiin wax hadda problem oo socdo oo xarakaada ma jiro oo ka ahayn gawaarida ciidanka ee socota ee kolba dhan noo dhaafaysa ilaa hadda laamaha kala duwan ee dawladdu haday noqon lahayd booliiska haday noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa wasiirada cid ay khusayso ilaa hadda wax ka hadlay ma jiraan dhacdadani waa la filayaa in laga hadlo hadda waqtiyadan ugu soo foodala sida ay warbaahintu sheegeen qaybaha aan la xiriirnay laakiin wax cod hadda soo baxay wali ma jiro gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa la sheegay in maanta loo diiday inuu la kulmo xildhibaano ku shirayay Villa Hargeysa ee xarunta guddiga iyo sidoo kale waa gudiyada iyo gudoonka golaha shacabka iyadoona mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya la sheegay sidoo kale inuu jabay faafahinta warkan waxa warbixintan inooga diyaariyay Xuseen Cabdulla Maxamed waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhaxeeya hoggaanka dawladda Soomaaliya oo 24 saac ee la soo dhaafay gaari halkii ugu xumaa waxaana dhacaya waxyaabo badan oo qalqal xoog la gelinaya ammaanka iyo xasiloonida dalka sida ay qabaan dad badan malaayiin dad ayaa aad uga walaacsan xaaladda ka sii daraysa ee Soomaaliya waxaana isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si xal looga gaaro khilaafka taagan wararkii ugu dambeeyay ee laga helay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in maanta gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu u imaan waayay xildhibaano la sheegay in si dhib leh ku galeen xarunta Villa Hargeysa oo ay ku shiraan gudoonka iyo gudiyada golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku jiro xarunta Villa Uganda oo ah guriga martida ee madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo aysan xildhibaanada gali karin isagana uusan ka soo bixi karin sida uu sheegay xildhibaan Maxamed Xasan oo kamid ah xubnaha golaha shacabka inaan gudoomiye u galno gudoomiye hadda meesha wax si guri oo rasmi hadda ku yahay oo wax walba loo diiday annaga waxa loo diiday Villa Hargeysa inaan soo galno waana soo galnay waayo meel aan xaq u leenahay oo gurigeena waaye in la ku dilaan diyaar u ahayn gudoomiye wuxuu ku xareysan yahay oo ku go'doonsan yahay Uganda House oo aad taqaanid anagana ku Villa Hargeysa joogna gebi ahaanba ganjeelooyinkii madaxtooyada u fulo waaweyn lagu dhajiyay qaybta dambe baarlamaanka iyo madaxtooyada qaybta u dhaxaysa irid ahayna tood qaliba xalaa la kansalay si toos ah dawladnimadii xeyndaadka dawladnimada waa laga dhaxbaxay aad oo si toos ah waxa loo dhaqmayaa in qoray aaradiisa la isku muquuniyo ah oo aan xishood lahayn annagoo xildhibaanadii ah Villa Hargeysa in qoray afka sankana la ka geliyo leeyahay ma geli kartaan aan niri nagu dhiftaa daartii ma dhimano laakiin waa gelina oo baabuurteena aan ka soo degnay ganjaalada laga furwaayay arrimahaas aan ka shirayna xaqi aan lahayn ummadda Soomaaliyeed wakaaladii noo dhiibatay in aan ku dhimano aan cadeyno annagoo xaqii ka shaqeynayna in dadkan hantidii qarankii oo cashuurtii dadkii Soomaaliyeed laga soo qaaday in anaga nagu dilayaan dadkii Soomaaliyeed oo soo wakiishay dhinaca kale baraha bulshada ee internetka saacadii la soo dhaafay waxa qabsaday baahinta warqad la sheegay inuu soo qoray xogayaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux taas oo lagu sheegay inuu buray mooshinkii madaxweynaha Soomaaliya ay ka keeneen xubno ka tirsan golaha shacabka kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in laga been abuurtay kuwaas oo tiradooda lagu sheegay 14 mudane sidoo kale warkan waxaa lagu baahiyay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona xubno ka tirsan golaha shacabka ayaa sidoo kale baraha ay bulshada ee internetka ka isticmaalaan soo dhigay warqadaas oo ay ku sheegeen in mooshinkii madaxweynaha uu buray idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ogaatay warqadda lagu sheegay inuu buray mooshinka madaxweynaha oo ay baahisay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona in tixraaca warqadda lagu qoray qalin oo laga bedelay tiro hore ugu tiilay waxna taasi muujisay saxaanshiyaha warqadan xildhibaan Maxamed Xasan oo aan weydiiyay waa xildhibaan Maxamed Xasan oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee mooshinka keenay ayaan weydiiyay waxa ka jira inuu buray mooshinkii ay keeneen walaal horta waa mahadsan tahay waa runta waraaqdaas waan aragnay meelaha lagu dejinayo adduunyada maanta waxaa fududaatay beenta inay si degdeg ah u baahdo walaal mooshinka la keena dastuur baa meesha noo yaala xeroosaad baa jira mooshin la keenay bar internet laguma burin karo mooshin la keenay wakaaladii wararka qaranka uu lahaa in la geliyo oo lagu faafiyo mooshin baa buray laguma burin karo mooshinka wuxuu ku buri karaa golaha shacabka keensaday
golaha shacabka ka doodaya mooshin buraya ma jiro mana burin gudoomiyahana waa iscadayn doonaa maanta sideedana waaba iska cadyahay mooshinka dadkii keenaan nahay annagana kamaana tanaasulin su'aalihii aan qabnay madaxweynaha noogama u jawaabin keliya wuxuu ku buri karaa mooshinkaas marka su'aalihii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay la gaarsiiyo oo baarlamaanka la horkeeno buri karaa waxa ka dhaxeeya waa kutrakuteen iyo warar iska raqiis ah dawladnimadana aboona ummadda Soomaaliyeed in la marxabaabiyo dawladnimadu waxay ku haboon tahay xaqa sida uu yahay in dadka loogu shaqeeyo hantida qarankana dadku ay dhaxdhaxaad u haadaan aanan lagu takrifalin awoodo kale loo isticmaalo xubno ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo barta ee internetka ka isticmaalaan ee Facebook soo saaray warqadan ee qalinka lagu bedelo tixraaceeda oo aan la xiriiray dhowr qof oo kamid ah ayaa ka gaabsay in wax faahfaahin ka bixiyaan in badan oo kamid ah ayaa sheegay in hadda ay ku jiraan shirar oo aanay ka hadli karin gudoomiyihii hore ee dalada ururada bulshada rayidka ee Sooshansa Cabdullaahi Maxamed Sharwac ayaa ugu baaqay hogaanka ugu sareeya ee Soomaaliya in si degdeg ah u xaliyaan khilaafka ka dhex jira si loo sii wado shaqooyinka qaranka xaaladda xalay ilaa maanta abuurantay oo aad sheegtay waxa weeyaan waa xaaladaan aad u wanaagsanayn marka xaaladda wadanka la fiiriyo xagga amniga iyo xagga xaaladaha bini'aadanimada ee dadka Soomaaliyeed haysta xagga siyaasadda xagga u roontahay ma jirto taasi waa arintaas weeyaan waxay ahayd waqtigan in maaragta la wada shaqeynayo saddexda xubnood ee dawladuna ay mid walba ay shaqadeeda ay qabsato midda kale tan aysan faragelin ay ahayd ixtiraam uu jiro wada shaqeyn ay jirto dadka Soomaaliyeedna waxaad mooday in yani siyaasadda ay bariyahan ka harsanayeen oo ay u arkayeen siyaasadda ayaga lagala fogaaday oo meel cirka ay dhulka u dhaxayda lagu maalayo haddana tan waxay muujinaysaa tii uu bay muujinaysaa bariyahana way jireen oo xalay kaliya ma aysan bilaaban